kulanti waxaan wanaagsan daawadayaal meel walba aad ka joogteen caalamka waxaan ahay Axmed Faarax halkaan naga socotaan waa warbaahinta SMS waxaan maanta safar nabad ah kaga soo ambaxnay magaalada Matabaan ee gobolka Hiiraan anaguna gaarnay deegaan kamid ah deegaanada hoos yimaada degmada Matabaan ee gobolka Hiiraan oo lagu magacaabo Dhugiile qiyaastina u jira 30 kiiloomitir haddaba waxa yaabay aan kala kulanay deegaankaas intii aan soconay waxa kamid ah inaan mid kamid ah geedaha deegaankaas ka baxa aan ugu nimaanay boqolaal dadweyne ah kuwaas oo isugu jiro arur iyo waayeel halkaasna ka wada waxbarashada qaar kamid ah ardayda aan halkaas kula kulanay ayaan waxaan wax ka weydiinay waxyaabaha ay halkaas ku bartaan adiga magacaaga u saad hay cubed waxyaabaha barata maxaa kamid alifbeetada hay ma akhri kartaa hay noo akhri waya cubed goorma bilowday iskuulka deegaanka ku soo tahay magaalada Dhugiile waan gartay bal ka waran hadda meel marka ku artay baa taa ma akhri kartaa marka soo akhri kartaa soo dareenka hadda waa sidee hayaabtaadi ugu horeyn magaca sida cali hay sida cali iskuulka waxba ka barta maxaa kamid arabiya barat ya arabiga barat ma akhri kartaa ya akhri ما شاء الله قول ما يبلغ اسكول ما مكهرب بلغ هي عارف هذا ما اخر سرك شوف يا عايش كهرباء ديغان كان كسوقتان Dhugiile horey deegaanka Dhugiile wax barasho ma jirto Quraan ka dhigtay laakiin iskuulkana ugu horeey iskuul wadaana tan oo dhigan yaad isbedelka adriin marka intuu leeyahay oo badan yahay aad u badan yahay hayaabti magaca adiga ikraan hay maxaa barataa Soomaali xisaab hay Soomaali xisaabta meesha aad ku aragtid ma akhri kartaa ma isku diri kartaa hay laba ku dar waa imis afar daa laba ku darnana lix miya lix haddii aan afar ka jarna marka waa meeq ka jar weli ma aada gaarin aada baasta haddii lix aan laba ku darnana ya sideed waa goormay bilowda waxbarashada ya maya meeqa asbuuc camraa dhiganaya inta asbuuc dhigada garanaysa waxbarashada kugu horeeyay oo hadda aad ka galay deegaanka ma soo horay tarbiyada iyo waa u soo barateen maadiga oo diiniga hore u soo baratay kitaabada dugsi quraan hore ma soo gashay quraanka la soo galay kitaabada ma galay dugsi quraan hore soo dhigtay xagee ku gaartay quraanka marka ina arsan ku gaartay hadda iskuulkii aa wadaa ma sha Allah hooy ma dhigata waxbarashada saxaafada joogtaa way ku dhigataa soo ma aad oo mahadsantaa hay maama waxa ka mid tahay ardayda dhigata iskuulkan hay magaca هاي ماما هذا حقي مرسينا وحبرشة باي تابو جرتين ورنا بلاد سو سدح اسبوع كوم بدل كان هذا فورو ما يدوي هي سدو arka deegaanka ku sugan tahay oo qiyaastii 30 kiiloomitir u jira degmada Matabaan ee gobolka Hiiraan inay maanta ku timaado waxbarashada faa'iido weyn aan u arkaa bulshada Soomaaliyeed faa'iido weyn aan u arkaa faa'iido weyn oo بعد أجعلان إلى لو تدخل كلام ده يقصد ديجان كان برشلونة يقول سوق حويه يعني أنا لو ذا جعله إن شاء الله ده إلهي نكرسي وحفظنا لا فائدة لقعنا جعله هو يحفظ هذا والله يا الله مركز سنة حساس الشهادة تكسر الحين عملوا تكسر صري هذا قاعد هذا وجد مسيس وحصل برشلونة وصل بالعالم ورجيها إن شاء الله ورجيها أي أنا وحبرشلونة إذا وأصح هذا واقع عروضها هيك بدها ماشي بس قال انا قلت halkan gabi wax barsha loo wada waxaag daawadayaal hore waxaan soo qoraysanay ardaydii dhiganaysa iskuulkan ayagoo rag iyo dumar la su'aaliya aan soo weydiinaa waxa aad ka garan kartaa qiyaastii deegaan 30 kiiloomitir u jira magaalada Matabaan ee gobolka Hiiraan aanag deegaanada miyiga saas waxbarashada ay heerkaas ka maraysan in waxbarashada Soomaaliya guud ahaan ay sare u kacday haatan waxa la kulmay
معلم عبد الفتاح أو كم ده برياش اسكول معلم عبد الفتاح وقرن كسر وقربين تسمس هاي إلهي سبحانه وتعالى ما أصنعتي مع كده برياش اسكول كان لقى أساسي هذيك مدة الأرض والكهر وان حاكر تسكول هذا تربية عربية هاي وان اسكولك واحد شكته هنا لما بلاد كهر أساستين أرضها حضر يجت اسكولك عدد لا ينتو قاري هذه عدد كده وما حصلي هاي بقول واحد بزيادة وأرض دقتها وان ولو هدر تاني الشيء فصح يقاركم مغين أنت شو تسكول أمي marka ardadaas culayska ugu badan oo hadda macallimiin ma kaliya haysto waxa ugu badan ardada macallimiinta joogta in cadadkoodu yar yahay ayna kaliftay tasiilaadku inuu wadaxi waayo waan dhaqaale loo heli waayo macallimiintaas iskuulada adigu wax lacag u dhigtay mas'uul kuwa free ma yaanagu iskuulada hadirtaan cid hadirtay ilaahay xaqiisa weeyaan bini'aadam wax lagu sidii ma jirto waan annaga dareenkanaga iyo dadkana wax qabadkooda ay wax ku dhignaa hadirtaan wax hadirtaan naga taakuleeyay ama heer dawlad ama heer jaariyad ama hay'adnimo ay jiraan horay hadda ka hor deegaanka iskuul ma waasaasin soo iskuulku ugu horeeyay ka aasisay kan mid ka horeeyay aniga aasaasan nafsahantayda muddo socday laakiin uu soco waayay culays jir awgeeda laakiin mar labaad dhalinyaradan anagoo soo kaashayn hadirtaan aasaasanay waxaan rajaynaynaa ilaa maalin nihaayay inuu meel oo dhamaad u gaaro insha Allah taala waan gartay horay adoo deegaanka macallimiinta u joogi jiray oo dadka deegaanka u dhashay ka mid tahay mas'uul macallimiinta la keenay meesha ka mid tahay maya anigu macallimiinta xagga diiniga bixi jirtaan ka mid ahay ardada dugsigan ka baxday qaaraas jaamacadda Safana ka baxday waan u dhigay jaamacadda Safana ku raacay hadda ka baxay Safana si fiican in badan oo kamid ah dirtaan waxna way bartaan waxna in ka wax barado waan deegaankan waxa ay sheegtay inuu qiyaastii 30 kiiloomitir ku jirto gobolka gobolka Hiiraan si fiican safarkaanina waa safarkii ugu horeeyay aan deegaanka ku imaanay caqabada ugu weyn ee dadka deegaanka maadaama dad reer miyi ah waxbar kala kulantay maxay tahay caqabada weyn dadka deegaanka waxa weeye horta ko waxa la yiraahdaa shay al-mar'u aduun lima juhila si fiican qofku wuxuu soo qoon cadow u yahay sax dadku waa dad hadeertaan xagga maadiga loo nuuxihayo in wax laga baro rabo waxay arki jireen way ku adagtaa dadka marka waa dad iska xool dhaqataa waqtiga ka soo dib dhacan waa la arkaa maalmaha qaar waxa la arkaa iskoolka dayiiciisa inuu iskoolka u baaqdo oo waxa weeye sheeg ama roob kale u imaado waxa weeye iskoolka uu soco waayay culayska noogu badan dadka qof walba wuxuu soo aqoon maalin uu bartaa in la fahansiyo haba adkaato laakiin si culayska ugu badan macallimiinta yaraantooda waaye meesha hadda waxaan kula kulmay arday yar iyo waliba qaar kamid ah waalidiintiisa oo waxbarashada wado waxaa jira waalidiin badan oo deegaankan u dhashay qaasatan area tuuladan degan ma jirtaa waalidiintaas inaad u tagteen aad dhahdeen maadaama arday waxbarashada aadayeen aduunkana fadhiga ka soo kaco waxbarashada soo raaca mase kaliya ardayga meesha kugu yimaado wax siideen oo ilaa baraarugin ilaa inta la gaarsiin baraarugna wuxuu gaarsiin ilaa qof waliba oo miir inuu wax barno gaarsiin si fiican dadka qofkii nuuxsan kara iyo qof aan nuuxsan inta waa dadaxta la soo qaadan la keeno caawid ku imaan si fiican qof walba aqligiisa wax ku qaadan kara wax waa la baraa qof ilaa qadar wax ka barta dadka marka fasax ku maqan maahan inta kuma jaango in wax la baro dadka ama heer kore ama heer dhex ama heer dambe inta raan wax waa la baraa ilaa inta xageerta waa badan yahay inta waxaan rajaynaa dadka aqwaanka wax barasho u diyaarka Soomaalnimo inaan gaarsiin insha Allah jecel tuuleen kala ku taasan deegaanka ay wax barasho saan kala ka jirtaa deegaanka way ka jirtaa tuuleen bal caadilahana kamida waxa kamid ah shaycaanada kamida tuuleen bal ka jirtaa kuwa hadda loo soo lama gaar marka barnaamijkaas wax barashada ka jira tuuleen walba dhamaantood waa dhalinyaro sabab kulli waa dhalinyaro iyo iska wax qabsado kacay hadda cid kale wax ku taakuleeyo jirto maadaama darir miyi ah wax baraysi dadkana la rabo in casharka isla socdaan sidii aan hore wax barasho u soo aragnay maalmaha qaar soo ma dhacdo in dad ay ku dhahaan wararti naga fakadaa goobna ama arin naga maqnaayo goobna ardaygaasi arday kale ay kala dib dhacaan maxaa ku xalisaa halkaas si fiican waxa weeye qofkii maqan qofka kale kula soo cishtaa ama soo ka qortaa si fiican cashkiisina ma u dhaafo asaguna baadiis waa raadsada si fiican hore marka loo sii hore loo wada cashku ma baaqdo maadaama dhigiisa uu ka hela cashkaas baaqa ugu dambeeya jeclaaleed bulshada Soomaaliyeed baxda waxbarashada inay la wadaagto baaqa ugu dambeeya aan la wadaagno waxbarashada iyo inta waxta ku wada waxa weeye in nagala gacan si xagga waxbarashada anaga ahaataa ama qoonka dambeeya ahaataa dadka waxa weeye maanta yaani sheeg muxsiniinta oo adduunka waxa weeye sheeg dadka taageer dadkan bi abaarna way soo mareen waxbarashadina diyaar u yihiin waxa weeye himadii iyo niyadii iyo halqaadkii in kala joog taageeridii waxay dheeri qof walba inuu taageerayaan baaqa uu biraa u yahay xagga waxbarashada inaga tago ama diin ama dhahaatay aad iyo aad u mahadsan yahay kaasi waxa uu ahaa macallin Abdi Fataax Sheekh Aadan Nuur oo kamid ah barayaasha iskuulkan geedka hoostiisa waxaan rajaynaynaa kulanka xigana barnaamijka ka qurux badan inaan u imaado Axmed Faarax Maxamed warbaahinta SMS deegaanada Galmudug